Sirdoon waa mid ka mid ah furayaasha guusha dal kasta. Sirdoonku waxa uu daraaseeyaa xogaha waddanka cadowga waddankiisa ku ah. Waa tan sababta aan kuu leeyahay sirdoonku waa furaha guusha sababta oo ah waxa uu ilaaliyaa siraha ama xogaha waddankiisa. Intaanan muuqaalkeena u gelin ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto haddaad nagu cusub tahay ka mid noqo bahweynta nagu xidha. Kaalinta koowaad waxaa ku jira sirdoonka ISI waana sirdoonka waddanka Pakistan. Waxaana loo sameeyey inay ka difaacdo sirdoonka waddanka ay cadowga ay yihiin ee Hindiya iyaga marar badan dagaalamay. Xarunteeda ugu weyni waxa ay ku taalaa magaalada Islamabad waxaana la aasaasay 1948. Hawlgallada ugu waaweyn ee ay fulisay waxaa ka mid ah dagaalkii Soofiyeedka ee Afghanistan oo ay taageero xoog leh siinaysay Taliban. Kaalinta labaad waxaa ku jira sirdoonka CIA waana sirdoonka waddanka Mareykanka waxaana loo sameeyey in ay soo ururiso xogaha basaasiinta waddamada kale iyo isku daba ridka shaqooyinka uu Mareykanku dibadda uga baahdo. Xarunteeda ugu weyni waxa ay ku taalaa magaalada Langley ee gobolka Virginia waxaana la aasaasay 1947. Hawlgallada ugu waaweyn ee ay fulisay waxaa ka mid ah khaarijintii hogaamiyihii Al-Qaacida ee Osama bin Laden. Kaalinta saddexaad waxaa ku jira sirdoonka MI6 waana sirdoonka waddanka Ingiriiska waxaana loo sameeyey howlgallada dibadda. Xarunteeda ugu weyni waxa ay ku taalaa magaalada London waxaana la aasaasay 1909. Hawlgallada ugu waaweyn ee ay fulisay waxaa ka mid ah dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee adduunka oo ay kaga adkaatay waddamada cadowga Ingiriiska ah. Kaalinta afaraad waxaa ku jira sirdoonka FSB waana sirdoonka waddanka Ruushka waxaana loo sameeyey ugaadhsiga shakhsiyaadka lidka ku ah xisbiga shuuciga ah. Xarunteeda ugu weyni waxa ay ku taalaa magaalada Moscow waxaana la aasaasay 1995. Hawlgallada ugu waaweyn ee ay fulisay waxaa ka mid ah dagaaladii Suuriya oo ay ku difaacaysay madaxweynaha Suuriya ee Bashaar Xaafid al-Asad wakhtigii gugii Carabta.